waxaan leedahay marka haddaad maqasho time management waxa weeyaan bay dhahay noloshu inay ahdaaf yeelato dad soo nolosha inaad target ka leedahay bishan maxaan qabtaa muxuu programkaygu yahay qofka biniaadamkii waxaanu qaban karin baa iska yar hadduu programmed yahay quraan baad qaybi kartaa kutubta sunnadoo dhan baad qaybi kartaa kutubta physics-kaad qaybi kartaa kutubta biology-kaad qaybi kartaa wuxoo dhan baad qaybi kartaa haddaad programmed tahay hadday noloshaadu hadaf leedahay waxaad rabto inaad gaadho targetka haddaanad lahayn maalan qur-aanka haddaad istidhaahda qayb طبعاتك المعروف كهذا واللي بقول يا أفر بيج هل كم بيج شن يتوسط 4 قرن سدا عادي جا less than 2 minutes بوقف كبني آدم كوكو آخرية إمسك قرب بعض بعض بيج سياد وقيبته صدر إنا بقيبته إمسك قرب أنا كوعي سياد وبعض توجه لا تنجه يعني قول والله إنا بقيبته إمسك قرب أنا دخل بعض بعض haddaad tidhaahdo 30 jeer baan u baahnay okay bage inaad ku celiso 30 jeer oo waa 2 minute waa 60 minutes waa 1 hour baad u baahantay qofka ugu maanka yarna haddaad inaad bage qaybi karto that means waqti kooban maxaan tusaalaha qur-aanka ugu bixinaya waxaan ugu bixinayaa hadafkaagu hadduu cad yahay waad gaadhaysaa 604 maalmood baan ku qaybayaa 604 bage haddaad tidhaahdo 604 maalmood wax 2 sannadood ka yar waa wax 2 sannadood ka yar mucjiso maaha waa nolosha caadigaa bay ka mid tahay laakiin haddaad hadaf leedahay aad programmed tahay garanaysid maalin kasta saacadaad akhriyayso laakiin haddaad xamaasad tahay والله القرآن كوينا غيبها وما أنت أخرج ده برينا ستين وساد ما كوعلي سيد وساكون كوعلي سيد طبعا سنة دوت غيبي ميس وهي برنامج المتيد هدف كيف كان دعاء القرآن غيب لكن ما نتكلم وقت قانو ما تصمينين ما كنت لقى واحد كو صمين لهاي واحد كان يكتون ما لنا سدح بيت غيب لبا عشان اسكغتك وهو المشغول ايده قفك بني ادم كهي وحا usamaysto waqti si fudud buu sameeyaa ma laga yaabaa inaad tiraahdo waqtaan waayo waxay yidhaahdaan ma baa jirta qolada time-ku ay sheegeen waxay yidhaahdaan waqtiba lama waayo ee masaladu wuxuun bay la mid tahay bay yidhaahdaan waa jalxaddii dhagaxa lagu guray bay yidhaahdaan jalxadda ma taqaanin ashoonka kuusada haddaad dhagaxaan ku gurto mise dhagax bay qaadaysaa waxoogaa haddaad tiraahdo ciid kaga dabasho ma qaadaysaa dee meeliya dhagxanta u dhexdhexaysa ciiddu galaysaa waa qaadaysaa soo maaha haddaad tiraahdo 2 koob biyaa ku sii dar ma qaadaysaa waxay dhahaan waqtigu waa sidaa maxaan uga jeedaa dadku inta badan dhagxantay eegaan laakiin inta kale ma eegaan bay yidhaahdaan haddaad wax walba istiraahdo saacad sii ama 2 saacadood sii waxaa jira bay yidhahdeen waqti badanoo qofka bini aadamkaa ka dayacma oo wax badan ku qabsan kara ma ku xisaabtantaa 5 minutes inaanay kaa dayacmin ama rubuc saac inaanu kaa dayacmin halka waa treenkaad raacdo jaamacadda iyo guriga inuu nus saac socdo nus saacaasaad qur-aanka ku qaybi kartaa hadduu programmer tahay treenka la socotay waxay dhahaan waqti aad shaqo kale ku haysay ayaad waxan kalena ku dhex qabsan kartaa xafiiska adigoo fadhiyaad wardiyi kartaa inaad wardidaa maxay qaadanaysaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah inaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa beere minute 100 inaad tidhaahdo minimum 60 waad odhan kartaa laakiin way nala badan tahay haddii lagu yidhaahdo wardigaaga subaxii waa 100 gooroo subxaan allah iyo 100 gooroo alxamdu 100 yaa odhan karaya soo dhanaysaa socanka maaha laakiin haddaad program leedahay waa waxa ugu fududa la qabto waa markaad guriga ka baxday ilaa intaad klaaska gaadhaysa awraadaadoo dhan ku filan waxa allaaliya waxa wardi sunnaa ku soo arooray from the bed ilaa iyo klaaska intaad ku socoto 5 daqiiqo 10 daqiiqaad socotaa 10kaa daqiiqa wardoo dhan kuugu filan 10kaad sii socoto inaad sii wardido 10kaad soo socoto inaad soo wardido wardi isagaa kuugu filan
haddaad xaafid qur-aanka ku tahay qur-aan akhrisoo dhan toban kaasaa kuugu filan. xaafidka caadiga ah ee qur-aanka rubuc saac buu jiska akhriya, gabadhluhuna nusa saac buu akhriya. idan wakhtigu waxay leeyihiin sida looga faa'iidaystaa dhagxanta qura maaha idhaha, yacni jalxaddan waxay tusaalaha uga dhigeen inuu brograam kastoo weyn oo aad samaysato ku kalo ku dhex jira inaad samayn karto, ku kalo kusii dhex jira inaad samayn karto. sidaa awgeed ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa kuwii habeenkii soo jeeday. habeenkii dadku u seexdaa soo maaha. ragga badh baa brograamkooda uu ka mid yahay habeenkii wax ka mida inuu soo jeedo. inagu habeenkii wax ka mid aynu xagga hore ka soo jeednaayo, ama aflaam sii daawanaa, ama riwaayad sii eegnaa, ama tv-ga sii eegnaa, ama brograam majaajilaa sii daawanaa. haddaad liidatana heesa sii daawataa iyo wax la mida. okay, dadka kani brograamkooda wuxuu ahaa habeenkii markuu cishaha tukadaan inay iska seexdaan. waxay dhahdaan caafimaad ahaan xataa habeenkaa ka hurdo fiican maalintii, waayo jidhku habeenkii wuxuu soo daayaa hormoonno seexa ku leh, maalintiina hormoonno kacoo shaqata ku leh. waad isweydaarisay nolosha haddaad noocaa u isticmaasho. hurdada maalintii o dhan waxaa ka fiican hurdada habeenkii, inaad maalintii snaab yar wakhti yar qaadanaysa mooyaane. dadka kani waxay brograamaysteen habeenkii intaad soo jeedda in ka yarunbay soo jeedaan, waanay ku janno galeen. ilahi wuxuu leey ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilaha yidhi. habeenkii in yar bay seexan jireen, in ku filan bay seexan jireen, in ku filan bay seexan jireen. laakiin inta faa'iidada lena way soo jeedi jireen, inta aan faa'iidada lahaynna way seexan jireen ee dadku sheekada ku soo jeeda. habeenkii halkan 8 la tukadaa. haddaad ardayto saacad 2 saacadood ka badan miyaa wax akhridaa? waa cajistaan markaa 2 akhridaan soo maaha. 2 saacadood markaa wax akhridaa haddaad seexato waa 10 habeenimo. 10 haddaad seexato imsaad soo toosi kartaa? yani 4 habeenimood iska soo kacaysaa 6 saacadood isku xiga markaad hurday. 4 habeenimo haddaad soo kacdo ilaa iyo salaadii subax saacad iyo dheeraad baa u dhaxeeya. quraan baad qaybi kartaa, salaad baad tukan kartaa, wax kalaad akhrisan kartaa, everything. maxaan uga dan leenahay? ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhira. dadkan laynoo sheegayo waxaa laga yaabaa inaan ka salaad badnayd dad iyagoo kale, laakiin waxa laynoogu tilmaamaya wakhtigooda si ay uga faa'iidaysteen, way brograam gareeyeen. qof aan hurdo u baahnayni ma jiro, qof hurdo ka maarmayni ma jiro bini aadam. mid waliba wuu seexday. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا بروجرام غريسو وهو حفظته. قرآن كإلهي سبحانه وتعالى نبي محمد مركو تببري هي الصحابة دي وحلقوا تببري تايمينج. dadku iminka waxaa laga yaabaa salaatu leylka inta badan inay ragcadaha ku murmaan. قويته بلد كان يمسن دوريلا بلد كان قرانكو رقعدا كما ورمي هي سنه ضبا انت بدل سنه فعلها وبرق على التلمامتي لكن سنه قولنا كما ورمي سنه قران هنا كما ورمي لكن هو كما ورمي وقت جاي يسال له فائده الهي حين يا ايها المزمل ومن الليل الا قليلا نصفه او انقص منه او زد عليه ورتل القران ترتيلا. kays duuduubayo baa ilaahay yidhi habeenka kac in yar mooyaane, nuskii kac, habeen nuskii kow, ama nuskii ka yaree baa la yidhi wax yar, ama wax yar ka badi. aayaddani siday sheegayso nebiguna tilmaamo markuu tilmaamaya soonka u fadli badan iyo salaatuleylka hor u fadli badan. kuwii nebi daawuud baa lagu sheegay. nebi daawuud maxaa la yidhi? habeenka nuskiibu seexan jiray, markaasuu suluskiisa, markaasuu suduskii. waa intan aayaddu sheegtay baa la tilmaamaa. hurdo kugu filanna waad seexanaysaa, laakiin waxa uu sameeyey waa maxay? aayadduna waxay tilmaamtay, nebiguna uu sheegayaa waxa weeyaan waa time programming.